Moscow madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa u hanjabay tiritaanka dalnimo ee Ukraine xilli ay ciidamadiisu ka wadaan dalka dariska la ah uu wajahayo iska caabin xooggan isla markaana dhaqaalaha dalkiisa ay cunaqabatayno sii kordhaya dadaaladii ugu dambeeyay ee Moscow looga hakinayo dhaqaalaha adduunka ayaa shirkadaha nidaamka lacagaha la iskugu gudbiyay Visa iyo Mastercard ee fadhigeedu dalka Mareykanka waxa ay hakiyeen howlahooda Ruushka. Mas'uuliyiinta Ukraine waa in ay fahmaan haddii ay sii wadaan waxa ay sameynayaan inay su'aal gelinayaan mustaqbalka dalnimo Ukraine, ayuu yiri Putin. Haddii ay sidaasi dhacdana iyaga ayaa si buuxda mas'uul uga noqon doona Kiev ayaa ugu baaqay in reer galbeedku inay si sare u qaadaan kaalmaha military ay siinayaan ay ka mid yihiin diyaaradaha dagaalka. Madaxweyne Zelensky ayaa sidoo oo kale ka codsaday dalalka dariska la ah ee Yurubta Bari in ay siiyaan diyaaradaha Ruushku sameeyeen ee duuliyaasha Ukraine loo tababaray in ay duuliyaan. Dhinaca kale, qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa warisay inay Washington ka shaqeynayso heshiis lala galayo Warsaw kaasi oo Poland iyo Ukraine siinayso diyaaradaha dagaalka ee Sovietka looguna bedelayo kuwa F-16 ee Mareykanku sameeyay. Isla markaana Putin ayaa xoojiyay digniin uu u jeedinayo NATO isla markaana u hanjabay dagaal baaxad weyn haddii duulimaadyada ay ka caagan la hirgeliyo iyada oo Zelensky uu NATO ku dhaleecayay inay meesha ka saarayso aaga duulimaadyada ka caagan la hirgeliyo iyadoo Zelensky ku dhaleecayn saarayo aaga duulimaadyada ka caadan ayaa uu Putin ka hadlay cawaaqibta baaxadda weyn ee aan ku dhici doonin oo kaliya Yurub balse sidoo oo kale adduunka oo dhan. Haddii tallaabo nooca la qaado, dhaqdhaqaaq kasta oo loo qaado jihadan waxa uu arki doonaa ka qaybgalka dagaalka hubeysan oo uu sameeyay dalkaasi, ayuu yiri Putin isagoo oo cambaareynaya xayiraadaha reer galbeedku. Hogaamiyaha Ruushka ayaa yiri waa inay in badan oo ka mid ah lagu sameynayo waa hab dagaal loogu qaadayo Russia. Cunaqabataynada ka dhanka ah Ruushka waxa ay ka mid yihiin iclaamin dagaal, balse nasiib wanaag heerka aynaan gaarin, ayuu yiri Putin. Madaxweynaha Ruushka ayaa sidoo oo kale ku gacan saaray weerar la dhex maray oo sheegaya in Crimea uu ka shaqeynayo in xeer military ku dhawaaqayo Ruushku. Wararkan iyo wixii ka soo cusbanaada waxaad nagala soo xidhiidhi doontaa oo aad ka dhugan doontaa YouTube-ka, page-ka Nine Somali TV iyo barta TikTok.